sidii u kala culus yihiin u fariistaan qaybta culusi marka uu daadku qaado mid walba meel gaar ah ayaa laga eegaa hadaad bir raadinayso iyo hadaad dhagax raadinayso iyo hadaad dhoobo raadinayso ta afraad waxa weeyaan compaction baa la yiraahdaa oo waxa weeyaan cadaadis mid walba meel gaar ah ayaa laga eegaa daadku dabcan meel gaar ma wada dhigo ta afraad waxa weeyaan compaction baa la yiraahdaa oo waxa weeyaan cadaadis waa inuu ku yimaadaa oo sida isku geli karayaan dabcan markaasi in baa u dhaxaysa inta u dhaxaysa ayaa inta badan laga eegaa compactionka nooca uu noqonayo taa shanaad ee latification ka aynu leenahay waxa weeyaan way isku malaasmaan ayaan oran karaa dhagaxaantii iyo dhoobadii iyo garaafaalkii jajabka ahaa ee soo qaatay marka hore weathering-ka noqday haddana erosion-ku soo qaaday deposition-ka noqday oo meel gaara fadhiisay compaction noqday oo cadaadis sameeyey latification-kii chemical reaction-kii buu isbedelay gebigeed marka taa macnaheedu waxa weeyaan latification-ka markaynu leenahay waxaad buuraha ku aragteen layman dhaadheer oo inta meel sidaa u fadhidaaba ay leedahay kalar gaara iyo chemical reaction-kiisa iyo structure-kiisa iyo nooca gravelka uu yahay iyo nooca maadhka uu yahay inuu isku mid yahay guud ahaana magaalooyinkeenu waxay fara badan yihiin xaggaasi sentimentalka u badan yihiin marka intaa waqooyiga laga tago oo igneouska uu badan yahay sentimentalku ma aha oo kaliya imika waxaynu kama baari karan oo kaliya macdanta laakiinse wax laga baari karaa waxyaalo badan oo fossil fuel-ka laga baari karaa qeybaha shidaalka ugu badan weeyaan macdanta ugu badan ta laga helo weeyaan daadku markaasi meel buu dhigaa alluvial deposit baa la yidhaha alluvial deposit-kaasi meesha uu dhigo inta badan waxaa laga helayaa macdanta sedimental rock laga heli karaa waa maxay markaynu dhahno waxaad oranaysaa beral oo xagga marka hore aynu beralkii oo aynu soo nuri igneouskana way ku jirtaa kii igneouska ka soo baxay ayaa sedimentalka laftiisa laga heli karaa waxa kaloo laga heli karaa ovalkaasi laga helayaa waxa weeyaan isagu marka uu taagan yahay latification-ka iyo compaction-ka uu taagan yahay oo ah isbedelka ayaa dhacay oo dhagaxa laftiisa wuu isbedelaa waxaa kaloo laga yaabaa in biro iyo lafo wax hore oo noola ahaa oo burburay inay dhacaan kaasi ayaa markaasi markuu compaction ka qaato latification-ka noqdo cadaadis iyo pressure iyo waxa imanaya temperature-kii oo kordha markaasi isbedel baa ku dhacayo oval halkaasi ka soo bixi kartaa ovalkii waa laga helayaa isagana quartz-kii baa laga helayaa oo isagana igneous-kan kusoo sheegnay turquoise dhagaxa la yiraahdo baa laga helayaa malachite baa laga helayaa azurite baa laga helayaa chrysoprase baa laga helayaa jihooyinka adeegaysa dabeedna dhagaxaantii hore ee vulkaaniga ahayd noocee bay ahayd maxaa samaysmay laafadu noocay ahayd magmadu noocay ahayd qaybta compaction-ku nooc sidee u dhacday latification-kaasi siduu u dhacay marka inta aynu sheegnay iyo inka badanba iyada waa laga heli karayaa